صاحب يال السلام عليكم سو دوادا إن شاء الله بينا الكريم waxaa ka hadli doono waa ciwaan aan ula baxay confirmations qofku markuu trade galayo inta aan horta waxaan u gelin qof markuu trade galayo waa inuu trade-ka qorshe ku galaa qorshana uu uga baxaa trade-ka confirmations-ka ama waxaan soo istiraatiijiyad aan bila confirmations ah ama trade bila confirmation ah waa oo qaatay riski aad ogeyn waxa uu yahay marka smart money wuu badan yahay marka maadaama smart money uu badan yahay qofku wuxuu u baahan yahay asaga wax u gaar ah ama confirmations u gaar ah oo suuqa asagoo ka fiirsado haddii suuqa bila confirmation aad ku galaysid oo suuqa meesha wax ka aragtid asa galaysid dee suuqa maalin kasta sellna waa aadaa buyna waa aadaa marka maanta un dee buy iyo sell uma dhexayn karid laakiin waa inaad og tahay suuqa meel aad meesha aad gelisid iyo meesha aad ka baxaysid waxaas oo dhan marka annaga ahaanteena marka aan isticmaalayno smart money waxaa jirto saddex wax oo confirmationskeena annaga mataqaanaa aan u isticmaalno confirmation ahaan aan u isticmaalno saddexdaa waxa confirmationka u isticmaalno waxa weeye waxa ugu horeeya liquidity wax la dhaho ama liquidity line wax la dhaho qodobka labaad oo aan isticmaalno waa mitigation move ka saddexaadna waa counter trend marka micnuhu ma aha inaa macnaha aa fahantaan iyo macnaha English ahaan wax laga wado iyo waxa muhiimna ma aha laakiin waxa noo muhiima conceptiga ah maxay waxaanay taraan ama maxaa waxaan sababta u isticmaalay waa maxay marka saaxiib yaal waxa u horeeya ku hormarna liquidity qodobka u horeeya liquidity ku hormarna liquidity-gu waxa weeye waa meesha dadku inta badan suuqa ay ka galaan ay ka buy gareeyaan ama ka sell gareeyaan markii la joogo muxuu ahaa retail trading ama method sababtoo ah suuqa horta laba nooc oo loo qaybiyaa oo dad traders ah dadka qaar waa smart money waxa la dhaho smart money qaybta kalena waxa weeye oo dadka la dhaho dumb money oo ah waxa magaca kale leeyihiin waxa jiro retail trading method retail traders waa la dhahaa marka smart money method iyo retail trading method bay kala yihiin marka dadka isticmaalo retail trading methods ka qaab ay u trade gareeyaan baa jirto markasta oo suuqu uu ugu soo noqdo meel la dhaho meel high ah ama meel low ah haddii meesha low ah uu joogo suuqu way ka buy gareeyaan haddii meel high ah oo mar hore suuqan laga soo ceshay ka soo qaado kale meeshan oo kale oo suuqa mar hore laga soo ceshay meeshan oo kale oo suuqa mar hore laga soo ceshay ayuu wuxuu sameynayaa inuu muxuu ahaa isheen inuu ka dhaho halkan oo kale markuu suuqa marayo ayuu sell dhahayaa suuqii SL-kan xaguu dhiganayaa levelka meesha kore soo dhiga ka soo qaado kale xataa inuu meesha ka sell gareyn laakiin meelahan uu ka sell gareeyay laakiin SL-kiisa xagee u dhiganayaa meeshan u dhiganayaa sidoo kale si la mid ah qof kale ayaa asna muxuu sameynayaa asna meesha ka sell gareynayo qof kale ayaa asna hadana meesha ka sell gareynayo that means area-dan dad badan ayaa lacagtooda taalaa okay dadka badan oo lacagtooda meesha ay taalo maxaa la dhahaa SL-kooda muxuu yaalaa meesha ka koreyso yaalaa maxaa yaala marka meesha liquidity baa taalo lacag badan baa meesha taalo lacagaa yaalo marka smart money muxuu sameynayaa dadka smart money trading ama institutions oo ku trade gareeya smart money maxay sameynayaan waxay og yihiin dadka qaabka ay dadku u trade gareeyaan ma og yihiin waxay markay suuqa meeshan yimaado ka soo qaado kale khasab maaha inuu suuqa dhaqaaqo meesha halkan oo kale level ah soo suuq levelkan maruu ka dhaqaaqa soo noqodkii labaad buu yimaada qofkan meeshan ka sell gareeyay soo maaha waxa laga yaabaa inuu xoogaa u dhaqaaqo qofkan in yar inuu dhaqaaqo dhaqaaqii uu geliyay ama uu geliyay hadduu sell stop ku geliyay hadduu meeshan ka sell gareynay u dhaqaaqay kabacdina uu sameeyo marka xoogaa u dhaqaaqo hal mar zig u dhaho oo kor u jabsado marka
waxaa dhacday inta badan qofku markuu halkaan oo kale asalkiisa u yaalaa dadka isticmaala istiraatiijiyadaha press action oo kale u arka halkaan oo kale asal ku yaalaa suuqiyo asal kaa garaacayo suuq asal kaa garaaca hadhow kale suuq haddana meeshaas kasoo daadanaya hoos bujahadii hoos u aadayaa adi ahaantaada jiha ahaan suuqa maada khaldin suuqa inuu suuq seel yahay waa sheegta waa ku ogeed laakiin maxaa dhacay suuqii waa laga reeba marka institutionisku ama dadka institution trader ama smart man u trade waxay og yihiin SL-ka inuu meelahan yaallo way og yihiin si kastoo levelka u fogay meelahan SL-ka ay dhigaysaa adigina sababta meelahan SL-ka u dhigaysid waxa weeye ma awoodid inaad isticmaashid SL aad u weyn sababta SL-ka aad u weyn maxna kama faa'iidayso suuqa soo ma ilaa halkan 60 bib 70 bib samaha waxta 40 bib way badan tahay ma isticmaali kadib xalaya marka inuu xagga inta yartahay oo laga saarin 40 bib tahay 40 bib ka bacdina suuqa jihada guud oo daato dhowr boqol bib hoos u daato adigi marka waa inaa yaabtida laga yaaba dhahdniyow suuqa waa saxsanaaye maxaa dhacay sababtoo ah dadka smart money waxay og yihiin qaabka u trade ay og yihiin okay marka liquidity lagu sheegay waa inta marka liquidity lagu sheegay waxa weeye waa meel suuqu mar intuu yimaaday haddana mar labaad yimaaday marka liquidity meelaha loo xisaabsanayo waa lagu kala khilaafsan yahay dadka qaar ayaa waxay u xisaab liquidity u xisaabsanaan suuqa hadduu meesha mar yimaado un yar hoos uga daato liquidity ahaan bay u arkaan dadka qaarna waxay dhahaan liquidity waa inuu suuqu meel uu intuu saan oo kale u yimaado uu ka daato waa inuu intuu ka daato kabacdi uu kusoo noqdo oo haddana ka daataa inuu kusoo noqdo marka muddo badan waxa laga yaabaa suuqan trendy weyn intuu aado sell door intuu hoos u daato haddana soo noqdo meesha kusoo noqdo meesha markuu kusoo noqdo intee uu haddana meesha ka daadanaya isla dadka lagu kala khilaafsan yahay ma yaro ka daadanaya mise markiiba intuu xoogaa saa uga daato hal mar haddana kor aadaya adiga baakskare qaabka soo kala noqdo arag marka waxaa u baahannahay liquidity macnaheedu waa fahanteen baa umalaynaya liquidity waa meel kastoo suuqu laba jeer mar ama ka badan ama 3 jeer ha yimaado uu yimaaday meeshaas oo dadka institutionska dadka ah retail trading ayaa weydiin karaa maxaa jira Axmed ana weydiin liquidity-ga ka weydiin lahaa صح lacala ka waran liquidity-ga hadeer haddii wan hourka oo kale oo daasho wax micnaa u samaynin kale laakiin 10 franc sida 30 minute ama 15 minute kale oo daasho ku muujinay ka waran horta liquidity-ga lagu sheegayo sidiisa ahaanba waxaa laga xisaabsadaa waa in low 10 frame-ka adiga wixii wan hour ka hooseeya ka xisaabsado waa inaad 30 minute liquidity ama 15 minute ka heshaa laakiin haddaad dhahdi ka waran liquidity waxaa raadinaya for hour ah haddaad dhahdi macquul ma waa wax adiga dheelitirir ama wafo waa wax weyn yahay liquidity-gaas laakiin liquidity adiga 30 minute 15 minute oo kale ah clear ka ah raadso marka xagan marka halkan marka aa u tugo marka aan tuso marka tusaale yar halkan aan ka tuso lacagtan waa lacag AUD lacagtan horta marka hore u horeysay iska cashaa lahayn waa ka lacagtan jiha ahaan wax u socotaa down trend way jihaan u socotaa maadaama down trend jiha ahaan u socoto waxa koowaad oo haysto waa maxay waxa koowaad oo suuqa ka raadinaya aan markaas training isticmaali waxa koowaad raadinaya waxa weeye first of all waa inaa helaa waxa hadda inii sharaxayo ah liquidity waa inaa helaa marka hore liquidity aanan helin trade ma raadin karo okay halka marka 30 minute ka jooga liquidity ma ka haystaa liquidity waa ka haystaayo xagan liquidity-ga waxaan haystaa ah liquidity-gaana haystaa oo 15 minute hadda liquidity caadi noqonaysaa ama 5 minute ka ita weli hadda xaggan ma rabo halkan ay isticmaalta rabaa marka intaysan ala waxaan dhicin halkan maxaa ka haystaa waxaa ka haystaa waxa weeye waa meel marka hore suuqu ka dhaaqay weli meeshaan oo kale idhig
at least meesha levelka la yimaado levelka markii la yimaado markaas liquidity ahaan u xisaabsan karaa okay maxaa haystaa marka waxaa haystaa meel suuq mar yimaaday mar buu yimaada haddana maxaa haystaa mar labaadna uu yimaada okay waa waxa koowaad oo aad raadinayso suuqa soo kama helin liquidity haa waa waxa koowaad oo suuq kasta oo aad galaya ka raadinayo wey kabacdi maxaa raadinayaa kabacdi fursad raadinayaa maxaa yeelay marka liquidity waa helay kabacdi fursad raadin marka insha Allah isku xirkeedu waa raadin insha Allah hadhow insha Allah mar kale ba trading insha Allah ku baalkeenaya halkaana maxaa ka haysanaa marka idan halkaana maxaa ka heli karnaa idan liquidity marka noocay noqon karaan marka su'aasha dinta maan hadda halkaan oo kale aan liquidity ahaan ba u xisaabsanaya halka liquidity ay tahay fahamsan ma umaleynaya maxaa kaloo liquidity inuu noqon karo halkaan liquidity inuu noqon karaa maxaa liquidity waxa weeye waa fursadda u horeyso oo aad trading ka qaadanayo marka adiga hadba qaabka ku tiragelinaysa hadii aan hawri ku tiragelinaysid 15 minutes 30 minutes waan ka raadi hadii aad ka soo qaado scalping u tiragelinayso day trade ahaan maalinta aan trade ka dhamaan tirabtina 5 minutes oo kale iyo trade oo ma taqaan liquidity gaaga marka halkaan oo kale liquidity igu calaamadeen kan oo kale waa liquidity liquidity high time frame adaan tuso halkaan oo kale liquidity aan u jeedaa malayna liquidity gaan ruuxa badan hatta even if hatta ka hada kana hada liquidity inuu noqonayo marka liquidity ani ahaanteedu waa confirmationka ugu horeeyo oo trade kasta oo dhaqaaqayo ka fiirsado trade-ka fursad intaan raadin waxa koowaad oo aad trade ka raadin waa liquidity halaawi hadaan liquidity ka helin trade-kaasi fursad kama haysto way macnaheedu inta in la fahmo umaleynaya inta ma la fahanteen ها أستاذ وسوي نفسه وكل فهم أو ماذا مرك mitigation waa maxay mitigation waxa weeye mitigation waa qof hadaa mitigation كنت فهمتي liquidity فهمتي mitigation waa fahmi karaa mitigation waxa weeye waa conceptiga ah suuqaani liquidity baa dhacday soo maaha liquidity-gaan dhacay oo meeshan suuqaani ah dhaqaaqa jabsanayo baa la dhahaa liquidity meeshan kale laba jeer suuq lagu ceesho soo maaha mitigation baa dhaqaaqaas mitigation la dhahaa halkaan oo kalena maxaa dhacay halkaan oo kalena laba jeer baa lagu soo ceesho mitigation baa dhacday marka laba qaab oo waxa jirta marka hadhow insha Allah trading waxa casharada ma ku sheegay qof marka uu raadinayo liquidity-ga ama mitigation-ka iyo see u raadinaya see iskugu xiriya mitigation-ka iyo trading-ka iyo wax see marka iskugu xiriya trending iyo mitigation-ka qaabkee iskugu xiriya marka haduu ilaa ku roon yahay mitigation-kuna ma aha mataqaana wax kale macna weyn ku sameeyay maxamed waxa weey meel kasta oo suuq kasta oo liquidity ka soo heshay liquidity-gaasi ma ka helay mitigation soo jabsaday ma hesha hadiisan ka dhaco inta liquidity dhacdo oo aan la soo jabsan ka waran aad dhahayd fursad liquidity-ga helay fursad baa raadinaya dhahayd may waa in liquidity-ga lagu soo jabsadaa marka liquidity soo ka bacdi ba wax raadsanaysa step by step wixii kale insha Allah hadhow kala bahalkeena okay marka waxa kale waxa jiro ah inta mitigation su'aal ka weydiin karaa يودي يعني ميل اوردر بلوك تسال ku yaalo kale oo ka sugaysay lacala inta lagu yimaado ka soo daato kale meeshaas markii lagu soo taabto ma la dhigi karaa mitigation mise markii la barigareeyo waan leeyahay waa mitigate xagaan marka in yara insha Allah xagaan akwa kaadso xagaan oo kale waa wax ii tahay waa maxay halkaan oo kale wax ii tahay OB okay halkaan markii OB ii tahay supply zone bay ii tahay supply zone ma ii tahay
xaggaana maxaa ka rabaa marka halkan liquidity bay tahay liquidity waa calaamaday liquidity ahaan waa calaamaday liquidity marka waxa u baahanahay dhaqaaqaygu inuu intuu soo jabsado liquidity-ga intuu soo jabsado liquidity-ga intuu soo jabsado inuu yimaado supply zone-kayga sometimes waxa dhacda marka supply zone-kaaga haddii inuusan imaano oo supply zone-ka intuu u soo dhawaado ama afka u soo saaro inuu laabto marka in suuqaani meeshan laga laaban rabo uusan soo supply zone-ka kore calaamadstay usoo gaarayn oo supply zone kale meelahan uu ka laabanayo iyo in kaaga uu imaanayo waxa ku ogaan kadhaa waxa la dhaho counter training ku ogaan kadhaa laakiin at least horta waa in la cunaa liquidity-gan waa in la cunaa liquidity-gan markii la cuno haddii meeshan mitigation move-ku uu yimaaday ay kuu tahay order block kuu tahay order block-gaas waa order block saxa laakiin sometimes waxa dhacdo in order block-gan ka koraysana uu aado meel ka hoosena ama uu aado kabacdi marka maxaa ku ogaan kadhaa marka in order block-gan mid sax yahay in mid khaldan yahay maxaa ku ogaan kadhaa waxaa ku ogaan kadhaa counter break ama break of structure suuqu marka uu high time frame ku socdo oo uptrend ku socdo suuqaani marka high time frame intaa kaga socdo maxaa lower time frame kiisa kusii jira marka kaba soo qaado kale waxaan waa waxa weeye waxaan oo kale qofkan mood garo for how structure weeye for how structure weeye kaba soo qaado structure kan marka for how structure kan intuusan jihada soo bedelan waa meesha trendiga ka fiirin jirnay Soomaa for how intuusan jihada soo bedelan maxaa marka ka horeeyo horta waxa ka horeeyo waxa weeye oo kow ah in lower time frame-ka sida 5 minutes oo kale meesha marka dhaqaaqaani korka bayga u socdo wali u qabtid inuu for how-ka bay ka yahay lower time frame-kiisa ba waxa sii dhacayso in jihada la soo bedeshay waa in lower time frame-ka jihada ka bacdi marka soo qaado kale kan waa for hour marka u horeyso 5 minute-ka oo saa ku socday baa wuxuu sameynayaa change of trend sameynayo soo bedelayo oo lowgi u dambeeyo 5 minute-ka oo meelahan kale inuu ahaa ka soo qaad 5 minute-ka oo lowgiis meelahan kale uu ahaa waa waxa dhacaysa in la soo jabsado lowgi u dambeeyay dhaqaaq cusub bilaamo low time frame-ka saan oo kale ahaa inuu change of trend soo sameeyo change of trend-ka low time 5 minute ka soo sameeyay 15 minute-ka hadana maxaa dhacay marka 15 minute lowgi in hadana la soo jabsado marka xagan muxuu ahaa marka meeshaan ka tuso waxa inay faa'iido fahantaan oo baahanaa waa meesha u baahan inaad isfahanto suuqan wuxuu ku socdaa sida caadiga ah uptrend ku socda oo for hour-ka marka saa uga jeedno muxuu ku socdaa for hour structure waa maxay waa uptrend caadi ah oo halkan maxay tahay halkan maxay tahay waa low high waa high low high 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 low high 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 low high high marka suuqan high high ga sameysanayo halkan inkastoo high high toos ay ahayn laakiin high high bas ka dheh suuqan sameysanayo uptrend ku socdo ogow lower time frame-kiisa inta aysan change of trending meeshan waxa ka dhici karaa change of trending suuqan meeshana oo ah meesha uu isku kala bedelayo maadaama meeshan ay u tahay meesha uu isku kala bedelayay suuqan change of trend ka dhacay inta aysan change of trending aan dhacan maxaa ka soo horeeyay in la soo jabiyo marka hore 15 minute-kii 1 hour-kii ka soo marka waa kan halkan marka xagan ay jar marka waa wax dadka inta badan aysan fahansanin laakiin haddii qofku fahmo suuqa u jeedna inuu ku socdo uptrend ku socdo inuu changing of trend dhici rabo maxaa ku ogaanaynaa waxa ku ogaanaynaa 1 hour-kiisa ama 15 minute-kiisa 1 hour way u fog tahay 15 minute kor ka fiirino 30 minute kale ka fiirino 30 minute-kiisa 30 minute muxuu ku socdaa 30 minute-na
30 minute wuxuu ku socdaa up trend buu ku socdaa waxaan samaynayaa waa high low high low maxaa loo baahan yahay marka 30 minute kan waa inuu sameeyaa new high waa inuu meesha ka sameeyaa hadduu meeshan new high ka sameyn waayo uu meeshan high low uu soo jabiyo that means waa maxay 30 minute change of trend baa dhacay okay marka okay maxaa marka koowaad maxaa dhacay wixii u horreeyay oo dhacay waa maxay break of structure baa dhacay oo 15 minute ah halka marka iyo calaamadii marka maxaa ku qorayaa break of structure ile oo ah waa maxay 30 minute waxa koowaad ah waa maxay change of trending inuu for hour ahaan trending for hour ba ka fiirsanay Soomaa inuu isbedel rabo waxa koowaad ay tusayo waa maxay kow maxaa hela change of trend break of structure 30 minute hela okay haddana 1 hour ka ma ka hela 1 hour ka high low giga xagee ah 1 hour break of structure kay waxa weeye meesha change of trend 1 hour ka dhici karo waa meeshan 1 hour break of structure 1 hour kayguna waa halkan okay marka xagaan midilka okay maxaa marka hadda waa in aad 1 hour kun jahan ahaan isbedelayna isaa ku ogaado waa inaa helaa waa maxay 1 hour maxaa haddana helaa break of structure 1 hour aa helaa that means maxaa kusoo xiga marka for hour kiiba kusoo xiga markaas marka waa step by step xaguu change of trend uu kasoo bilowdaa low time frame uu kasoo bilowdaa low time frame ilaa iyo for hour uu yimaado jihada toos isku bedela marka adiga waxa laga rabaa marka adiga ahaantaada change of trending aad fiirsatid xagee ka fiirsataa for hour ba ka fiirinaysaa Soomaa for hour marka ka fiirinaysid ma for hour ku intuu isbedelaya sugaysaa mise waxa jirta confirmation early ah oo xilli hore aad sii ogaanaysid oo ah lacagtan in change of trend uu dhici rabo waa inaa heshaa confirmation early ah oo ku sheegay in lacagtan change of trend ka dhici rabo oo adigu u sii diyaar garowday lacagtan in change of trend ka dhici rabo laakiin hadaan dhaadid ka waran for hour markuu change of trend dhaco baa suuqaas trade ka qaadanaya oo suuq change of trend marka uu dhacay uu isbedelay suuqii fursadii wax laga yaabaa inay bahalkaysay oo fursada kale oo raadinayso ay noqoto fursad continuation ah marka waxaan hadda ka sheekeynayo inta badan istiraatiijiyadan smart money qofka isticmaalayo waa khasab inuu yaqaano waa inuu og yahay lacagtan for hour ahaan xagee trendigeedu waa xagee 15 minute ahaan trendigeedu ma abba misuu isbedelay oo suuqan oo kale trend abu ku socdo Soomaa for hour ilaa 1 hour ilaa 30 minute ilaa 15 minute up trend buu suuqan ku socdo Soomaa okay suuqan maadaama uu up trend ku socday horta 5 minute hadda isticmaalay soo kale waa isticmaal ka dhaa laakiin 5 minute intaan gaarin 15 minute hadda isticmaalo 15 minute ahaan mi soo bedelay 1 hour ahaan mi soo bedelay 30 minute ahaan mi soo bedelay ka bacdi marka hadda aanu ahay qof swing trader ah 1 hour kii intii waa ka qaadan karaa ilaa 200 bibo haysan karaa traderka oo fursadani hadii change of trending marka meeshan ka dhacdo kale aad trader ka siraasan lahaa ka bacdi waxa jirta inta qaab kale oo fursada loo siraasanaya jirto marka war inta aan misla fahanna wanaagsan ustaad okay iyaan fahmin meesha ma jirtaa ustaad meesha marka ku cilbar okay مع العطس وكعلي وطريقك مركو isbedelay markaasan ka dhacay trendiga inta uu san for hour ahaan uu iska bedelin waa inuu marka hore trendigani sida guud for hour ka ahaan up trend buu ku socdaa marka taa waa 1 hour ka fiirsin up trend buu ku socdaa 30 minute ka up trend buu ku socdaa 15 minute ka up trend buu ku socdaa marka for hour ku intuu san trendiga soo bedelin waxa koowaad oo la rabo in la soo helo waa maxay waxa koowaad 15 minute kayga baa tagaya lacagtaan markii halka marisay dhakada markii marisay meesha ka ogaan kari in 30 minute break ama ka ogaan kari
waa lowga soo maaha inkastoo meeshan low ay sax ahayn hataa halkan ay tahay oo 30 minute ahaan marka isticmaali sababtoo ah halkan break lama sameyn soo maaha maadaama halkan break la sameyn hourkigana meeshaan noqonaya sababtoo ah 1 hour ahaan lowgii meeshaan waxaa noqonayso 1 hour okay 30 minutes marka ay tahay still ha meeshaan ah 1 hour kana meeshaan ah may 1 hour ka meeshaan noqonayso okay marka waxa koowaad marka muhiimad waxa weeye waxa koowaad in ogaado u baahan waxa weeye suuqaani inta aan ogaan horta inuu furaha warka iska bedeli rabo waa in marka hore ay helaa confirmation ah in suuqaan uu isbedeli rabo confirmation ka see ku helaya marka confirmation ka waxa ku heli karaa waa in meeshaan oo ii ahayd 30 minute high low ii ahayd in la soo jabiyaa oo la cunaa lowgii ugu horeeyay oo 15 minute ka ahaa marka wali ogow suuqaani wali marka u fiirisid for hour ahaan marka u fiirisid wali waa uptrend laakiin 15 minutes kii iska soo bedelay marka koobaad ka bacdi haddana waa in la cunaa kii 1 hour ka waxa laga yaabaa ogow wali markii kan 1 hour ka la cunaa xataa in for hour ka uu ku sheegayo wali uptrend uu ku sheegayo oo suuqaani uu uptrend ahaan for hour ka yahay wali laakiin 1 hour kii uu soo sameeyay change of trend soo sameeyo ah lowgii la soo cunay jaha cusub dhinaca soo aadi rabo marka waxa laga yaabaa intuu 1 hour ka iska soo bedelay jahada inuu haddana uu for hour ka aweyn ma ogtaa uu haddana uptrend ku socda laga yaabaa laakiin adiga suuqu you never know marka suuqu isbedeli rabo adiga ma og matid laakiin confirmations aad ku ogaan ka dhib baa jirto sometimes wuu khilaafaya sometimes wuu ku saxaya soo maaha marka annaga waxa u baahannahay waxa weeye marka uu khilaafayo inaa SL mataqaana u ogolnahay suuqan SL na mataqaana muxuu ahaa isheen ayman suuq u gashanaa aan dhihin suuqaani halkan markuu marayo suuqaani halkan waa ka bay gareynaya ama waa ka sal gareynaya waa ina ogahay marka suuq halkan ka sal gareynayo waa ina dhahaniyo SL-kii meelahan ii dhig hadduu suuqaani uu kor aadana korkayga SL-ka hayga dhufto haddii kalena ii dhaaqana waa ina si fiican uga faa'iidaa laakiin haddaa dhaho kawan suuqaani halkan waa selka waa inuu aadaa uu bay iskaga socdo kawar SL-na aan ahayn waa ina suuqa meel ka geshid meel uga hardhaa waa ina SL aan marka qof waxa ka hadleen waxa waa probability iyo possibility waxaana way dhici kadhaa hadaysan dhicina probability kale oo dhici kadha in suuqaani bay aadaa dhici karo marka waxa koowaad oo ka ogaanay suuqa inuu change of trend dhacay waxa weeye waa ina lower term frame ka inta tago ka soo helaa change of trend lower term frame ah waa ina soo helaa ka bacdi trendkiga lower term frame ahaan u soo qaataa lower term frame marka trendkiga u soo qaato trendkiga change of trendiga high term frame ka markuu dhacayo almost aniga suuq meel fiican baa kaga jiraayo faa'iido fiican buu ii wadaa laakiin haddii dhaho marka high term frame ka isbedelo baa trendka qaadanaya waa ina SL horta isticmaala waa ina haddana SL isticmaalin hadii mataqaana isheen suuq saan oo kala u socday oo almost high time frame ki meelahan sii marayo hadda ogaada ka waran for hour ka ogaana marka for hour ka change of trend dhacay change of trend for hour ka dhici karaa for hour change of trend meeshaas oo ka waran hadii meesha xataa high loo xisaabsado suuq markuu halka maraya hadda ogaada ka waran change of trend lacagtan isoo bedeshay lacagtan markii halka maraysa hadda halka markay jabsatay hadda ogaaday ka waran in lacagtaas change of trend dhacay aniga oo ogaan karay markii meesha maraysa fiiri xagee anna ka soo ogaanay halka 30 minute markuu dhacay baad soo ogaan in change of trend dhici rabo marka wax ka hadlay waxa weeye waa in early entry soo helnaa oo xilli hore sii ogaana in change of trend uu dhici rabo change of trend waxa inuu dhici rabo waxa ku ogaan kara waxa weeye waa in for hour ka lower time frames ka sii yar sida 1 hour ka 30 minute ka 15 minute ko kale soo fiirina in change of trend uu ka dhacay kabacdi marka lower time frame change of trend ka soo helno kabacdi waxa heli karnaa for hour change of trend heli karnaa ayadoo aysan dhicin fiir ayadoo aysan dhicin 30 minute change of trend oo meelaha la soo jabsan suuqan meesha ma soo jabsan karo waa in suuq marka hore meelaha soo cunaa kabacdina uu kii weynaa u yimaada inta waa fahanteen soma waa fahana waxa hiriisa ka weydiinay ustaad oo raaliya weydii aalan oo يعني هل مرتر waxa ku weydiin rabaa 30 minute kana tag yani lowga xisaabinayso midka booska sameeyay ma ha lowga fiir lowga lagu sheegayo waxa hadda inii sheegayo dadka qaar boos kaliya u yaqaanaan boos ma aha muhiimadu booska ma aha muhiimadu waxaan conceptigu waxa weeye waa change waa trendigi baa la isticmaalayaa break of structure oo booska aad muujida boos 30 minute muujida xagan 30 minute boos baa wajida Soomaa almost waxa wada 30 minute marka tagno 30 minute boos uga jeedaa Soomaa 30 minute boss waxa weeye waa 30 minute change of trend weeye meesha arabina ila fahantaan waa meeshaas
مع الوحير أستاذ. شاشة سوق قلوعي وحير حقاني ما يقولوا عيا داون ما لمبرada meeshaan laga xisaabay markino tag ee hoos soo jiid meeshaan SL markii la gelinayay TV la gelinaha hoos soo jiid yare oo yare okay waa santahay okay أستاذ awla lowgaas yani hadda ma jabin miya hadda 30 minute ka lowga hanta hati midku ijibi sababtoo ah la sababta lowga ah xagga ani waa inaan dhahay fiiri waxa u xisaabsadaa asa kan dhalis sababtoo ah hadda weegan boodiyadan suuqan boodiyadiisa waxa jiro suuq kale oo boodiyo kale oo jabsaday baa jiro marka ani weega inta badan ma xisaabsado laakiin hadii kanaladan boodiyadoodu waa meeshan soo kanaladan boodiyadoodu maadaama meesha ay tahay waxa jirto boodiyo kale oo si jabsaday baa jiro that means brick of structure waa haystaa 30 minute 15 minute ka asagana ma ka raadin karaa marka change of train waa ka raadin ka dhahaa adun waxa ku leeyahay time frame waxa ku 15 minute 30 minute waxa waa ka raadin ka dhahaa hadda almost 15 minute ka sababtoo ah high waa kan last high low waa meesha almost waa the same area way 30 minute iyo 15 minute ko Ustaad 15 minute ka same maaha meel ka sareysu leeyahay meeshaas high-ga ay high-gan fiiri marka adigu waxa marka high-ga ah xisaabsanaysid high-gan hadda high-gan aad xisaabsanaysaa Soomaa high-gan high kaasa high ahaan xisaabsanaysaa Soomaa si fiican kan ani ahay ahaan ma xisaabsanin sababtoo ah kan ahay ahaan hadda 5 minute isticmaali oo kale waa u xisaabsan lahaay meesha laakiin maadaama aan 5 minute aan isticmaalin meeshana low ahaan u xisaabsanaysaa meeshana waxa u xisaabsanaysaa high ahaan ani laakiin sababtoo ah meeshaan fiiri high-gan meeshana high yahay marka hore halkan dad oo caadi ah oo body leh kamuusan furmin korkeeda 15 minute marka joogtid فهمت صوبته هذا حاجة صوبته هلك أنا وحساب سنة واحد وي هذا أذو هلك ويك وشبصدي يحسب سنة لكن هذا 5 minute كأتجو كله ماشى سوي عادي بينو قنصة ماشى الهاي بينو قنصة صوبته كان الله يرو 5 minute وشبصدي ولا هي يعمل كم شيء لكن 15 minute كله إيمان قنصة سيف عن أستاذ ما صنت أدي هذا مسيف عن فهمي مع الوحير مع الران وكاكسي waxaan ku weydiina hadda baasha meesha asaarat isha afurkiiskan baalka تمام ma bahalkan caadi highlight kamarisi yes hoosteeda so meel la soo jabsanay ma wiigan fiiri hayso hoosteeda soo fiiri wiigan dheer oo baay ka baxay dhanka kale bidixdu soco bidixda كم yes good كم مسكن ما مش هذا معل مع المشي ما دي كانت دي لسه جبصة ترند وضمانة ماي بريك اوف ستراكشر كأريادينيسيد waxa aad ku raadinaysid ma ah meel kasto oo lug ah ma aha break of structure ka raadinaysid waa in suuq fiiri waliga marka aad break dheeraad waxa la iska khaldan waxa weeye suuqu marka fiiri suuqu markuu uptrend ku socdo kale si meeshaan oo low ah u xisaabsado fiiri hadii meeshaani oo structure kaani la jabsado meeshaan low in noqon kara marka laakiin hadii ka waran lowga meeshaani ay meelahan ka soo noqoto ka waran oo suuqu hadana oo hoos soo aado وهو سؤال ماشان marka mii noqon ka dhaa marka meeshaan mii noqon ka dhaa low mii noqon ka dhaa ma iman noqon ka dho say meeshaan low igu noqoto waa in suuqaani uu meeshaan jabsadaa haygan uu jabsadaa fahmisa bacdi meeshaan low in noqon ka dhaa sababtoo ah waxa la fiiriyaa lowgan la jabsaday haygiisa hay cusub ma sameeyeen بالعكس سيدو كلنا مركي هوس جوجتنا يس صدق فهم حوا هاير لو روا ها ميرها كيف يسنس ترير او تشينج اوف تريندينج كيف يسنس وين لو ميل نقطها ميشاس ام هدي سوق كور u socdayna وين نقطها ميل هاي لو ku ahayd had meeshaan kale maxay ahayd maxay noqon lahayd high low iyo noqon lahayd soo lower high low up trend ba suuq up trend ay socday up trend u socday lower high noqon high low meel uu nastay waay meel uu nastay haduu hoos soo aadiyay oo meeshaan i sameeyay waa maxay xagee in noqonayso change of trend liga ka fiirsanaya waa xagee waa in lower kan laga soo hormaro waa in lower kan laga sarmaro waa in meeshaan lower high gan waa in laga sarmaraa
marka break of structure-ka aan maqlaysid waxa weeye waa meel high low ahaa ama meel low high ahayd time frame-ka aad joogtid marka aad xisaabsanaysid adig kuu taalaa marka break of structure-ka change of training time frame-ka aad ka fiirsanaysid waa mid adiga practicing-kaaga iyo mataqaana practicing-kaaga ku fiirinaysid laakiin adiga marka low high muhiimad waxa weeye waa in meel kasta oo high low iyo low high ah meesha aad ka fiirsanaysid break structure-ka haddii marka low high-gan uu yahay 15 minutes low high ama 1 hour low high ama 4 hour low high uu yahayna adiga kugu xiran tahay marka practicing ba u baahan tahay ina waxa ka ku shaqeynaya ogaatid laakiin hadaa dhaho ka waran break of structure ba maqlay break of structure clear training ku sameynaya waa adiga aad wixina practicing aad ku sameyn conceptiga ma la fahanteen aad iyo aad si fiican u fahanteen soo aad iyo aad noo duubno waa ku ceshanayna ha video waa duub video